muuqaalka maantana wuxuu ku bilaabanayaa gabar suwi lagu magacaabo kaligeedna dhex fadhiday galaaska waxayna sugaysay aabaheeda si uu u qaado maantana hooyadeed dhalashadeedu ku beegneed sabraysna inay u dhigaan qorshahooda uu ahaa hooyadan oo mari magaceedihana wakhtigeed ugu badan laabkeeda ku bixisa maadaama cilmi baaris ay waday kuna soo saaraysa dawo xanuun walbo biniaadamka ku dhaca ku caafimaadi karaan gabadhii aabaheedna kama dambeyntii soo qaateen gaariga waxayna imaanayaan laabka si ay sabrayskii ugu sameeyaan halka maariyana iyo booskeeda iyo qaar kaloo سينسانا شر وذليهين دكتور دريل اللي دهدنا ودتك الوجيغي إن ماريا إسو سارتي دو أن عادي هين انتاسونا دك دويسو وحنا ماري ويريا ستيج كسيفا فايندر وسيسو هلكا حفيز كمارينا كبدي ذي إنكي قبي أي شمع كل حتى ريان تاسونا كانت إن ألارميغا أوغيليو مارين ويسو أردي سحفيز كيدن أي إما داي سلمركينا سبراسكيا لغ هوركينا أو دالشو عن ليري وسيكستيو ماري أيسن كوفرحين انتان وحنا كوغيلنيسا نيكيدا كريستوف هكاري من سيدو كل قبدي ذي سوي sabraaskoodii soo diyaariyeen kama dambeyntii guul darro ku soo gabagaboobay intaa ka bacdina suwi oo lab kaliid looga soo dhex tagay doolshii hooyadeed u waday ka tuuraysa xanaaq darteed waxayna ku dhifanaysaa mashiin meesha yaalay isla markiina mashiinkii waaba uu daarmaa gabadhan ay damcaysa inay demiso balse cod uu u sheegayo in qaybta reaktarka ay tagto kadibna ay demiso gabadhan ay u soo ordayso qolka reaktarka u yaallo markii aad ugu soo dhowaatana iskuna daysa inay demiso codkiina uu sheegayo meeshan inay ka cararto reaktarkii uu qarxayo dawa sun ahna ayuu soo daynaa sundaasna gabadhan jirkeeda ayayba gaartay saacada fara badan kadibna waxaynu arkeenaa suwi dhaawacdii soo gaara darteed ambalas looga dhex daweynaayo intaa ka bacdina hooyadoo mar dambe u imaatay gabadheedii weydiisay ma xasuustaa kahor qarax intuusa dhalin wixii kugu dhacay gabadhan ku jawaabtay maya maama mar dambena gabadhan oo caafimaadkeeda oo kay ahaa iidii aabaheeda soo wada raacayaan gaariga gabadhana ay aad uga xumeed in hooyadeeda ayba inta la daweynaya xataa u imaanin balse baan ugu jawaabay qofka ugu horeeyay ee laabka kaa soo bixi waaba hooyadaada si kastaba gaariga intay sii saarnaayeen guriga una sii socdeen gabadhan gacanteeda ku arkaysa iftiin inuu ka soo muuqanayo balse midaan aabaheeda aynan u sheegaynin oo ka qarisay habeenkaasni gabadhan markay iska seexatay ku riyoonaysa subarhiirowga ee aad ku jeceshahay oo subarmuul lagu magacaabo subaxdiina markeed soo toostay dareemaysa inay aad u daalan tahay keliiniinta maaha gacanteeda mid ka mid ayba iska mirqayso sagan kadibna haddana way u soo noqoneen waqti xadirkaas aabaheedu ka kacinaysa iskuulkeeda iyo u aado waxaabihii ku dhacay oo dhan ka qarinaysa intaa ka bacdin iskuulkeeda ayuu u soo qaadaa maalinkaas mu sheegay in muddo maalmaha uu maqnaan doono guriga showna uu ka qayb geli doono gabadhaasi ay dhahayso keliyama guri lagaadiga haatan hooyadeedna waa ogtahay laabka lagama dhex waayo وانا إيسا حناجينيسو انتا كبعدين اسكول كيدي سوغا شلوكر كيدي نسكي استعماليسا ويل توبي لغو مكعابو او قبنا ساحب لها اوغو يميد وحونا اوغانا اسنا قبنا اني سوبر مونكا تايرو تاهي ايغو سكا ولا وحاب كوساب سيسان سوبر هيروسكا كبر ايلين لغو مكعابو او ديبلي اوغو تيميد ويلغان اي هوسوس اوغادي جرتنا اي كو عسوميا حفلات هولوين سواشاس انتو كجوابين قبدي سوي هاد لا تاغنت دقيقة كور مرق ماشي بجوغين با وحنا ساركا زيدو دحتان جنب السوليغا انتي سوليغا كجنت كانتي نسو موغانيسا كليا gabar suuliga rabtay inay isticmaasho arkaysa waxaan u maleynaa gosti inay ku dhex jirto suuliga waxaan u sawaa macallimadina markay meesha timid suugi ay taagan tahay suugina la weydiinayo meelaha gosti ma ku aragtay waxay isku dhahay maya macallin taa darteedna gabadhan macallimada way ku qaylinayba oo maxabeen ugu sheegtaa la dhaha iskuulka kadib maalinkaasna gabadhan hooyadeed laabkeeda imaaday waxaan u sheegay waxaabay maanta ku soo dhacay oo dhan iyo inay miraq dhigi karto faafaan iyadoo sii siina suugi daal darteed dhulka ku dhacday martabana waxay ka soo kacaysaa iyadoo guriga joogto hooyadeedna ay la joogto sidoo kale koob shaaxna ay siinaysaa gabadha si u cabto isla markii biyahaas kuleelka ay cabtana suwi haddana ee miraq dhahday taasna mariya ayayba la yaab ku noqonaysaa mar dambena suwi oo furtay filinjeersi bi qabow uu cabto haddana soo muuqatay waxayna ogaanaynaa gabadhan kuleelka inay ku miraqdo qabowgan ay ku soo muuqato hooyadana gabadheed ku dhahayso haddii saan tahay waa inaan baaritaan dheer kugu sameeyaa hasaate suwi diidataas waxaan leesaa aniga sidii duuliga camal aad u geli jirtay ma rabtaa in ay gasho saade hooyadan gabadheed ugu jabto waxaan rabaa dawadii aad caadi ugu noqon lahayd inaan kuu soo saaro kulana sii ballamaysa waxyaabahan cid kale ha u sheegin ani adiga un hanagu ekaadaan maalintii xigtana iskuulka iyadoo sii gelaysa tobi uu ka hor imaanayo wuxuuna weydiinaa maalin hore maxaa igaaga miraqday intay aad dawaba ku waayey waxaa sugu jawaabay arrimeero degdeg ugu soo dhacay hadal kale intayna dhihin ayliin foodaaleydii ay ka hortimid haddana tobina ayay ku xanaaqaysa oo dhehaysay suwi mar damba halhalin waa gabar qashina saaxiib ucliyaadana ma haysato taasna suwi ayay ka xanaajinaysa waxaanay ka hor imaanaysaaba ayliin dagaalna ayay rabta inay ku qaado nasiib wanaagsan taleefanka ayliin oo soo dhacay cod fani ah oyna iidan saaranin soo qayliyay ayliin ceeb ayay dareemaysaa waxaana soo baxsaba kama dambeyntii waxaabaan gabar kaaya lagu magacaabo walaalahayna falastiina aad taageero u ahayd inayba ka dambeysay waxyaabahan oo dhan intaa dabeedna suwi ay kaaya u mahad celinayso ficilkii samaysay maanta darteed
maalinkaasna iskuulkii kadib suwi imaanayso Maria laabkeeda baaritaan dheerna ayaa lagu samaynaa waxaana la joogay caawiyaheeda Leniya ay la tacajabayso gabadhan iyo si u mirqlay karto waxayna taabanaysaa gabadhan jirkeeda iidana sidoo kale Leniya waa mirqlaynayba xaggaasna waxaa kasoo baxaysaa gabadhan markay rabto inay mirqlayso haddii aad taabataadeen waa mirqlayne Maria markay u soo baxday sektarka maalinkii gabadhan gaartay darteed ay awoodaan u heshay go'aan ku gaaraysaa in dukumentiyadii oo dhan ay nadiifiso si gabadhanteeda halis aysan dowladda ugu gelin taasina Leniya ayay ka xanaajinaysaa oo dhehaysay falashan waxay ka caawi karaan inaad dawo gabadhan lagu soo celinayo soo saarto waase diidaysaa Marias oo in yar mashquulsanayd Leniya ee dukumentigaas falashkeeda kusoo koobi garaysanaysa weliba si qarsoodi ah inta kalimahana suwi ka xanaaqayso hooyadeed ficilkii ay samaysay maadaama u muuqato qof kaliya danaheeda ka fikirto iyadaana aanan danaynin xanaaq darteedna ayay laabkoodeeda ugu soo tegaysaa waxayna imaanay Kaya meel ay ka shaqayso iyadoo maqneedna xaggaas bay iska seexanay daalhay darteed mar dambana Kaya oo timid suwi ku dhahaysa arrin ayaa raba inaan kuu sheego waxayna wada imaanaya meel maqaayada Kayana loo sheegay awood ayaan leeyahay waa mirqli karaa hasaatee Kaya u malaynayso saaxiibadeeda inay kaftamayso on time ayaaba lagu imaaday gabadhii Aileen ahayd gabarleydii timid waxayna markale ku bilaabay suwi inay foodayso jaaniskan suwi ka faa'iidaysanaysay isku bedelaysa waxaan loo jeedin kadibna shaax biyo wax walba ayayba Aileen ku kor daadinaysaa mar dambana gabadhana aabinteeda darantay halkaas dhan ka orodayba kama dambeyntiina Kaya ay aaminayso suwi waxaabay sheegaysan inay yihiin maqribkii maalinkaasna gabadhan ay hooyad wada kulmeen suwi Maari u sheegaysa maanta Aileen waxaabay ay ku samaysay balse hooyadan taas kuma farxayso oo waxay ku dhahay waynaad waxaan ku wada qarisaa maadaama macquulay tahay rag xunxun inay arkaan awoodantaada kadibna si xun uga faa'iidaystaan dhinaca kale meel magaalka waxaynu u arkaynaa nin dhakhtar drill u shaqeeya kaasoo CCTV ka helay muuqaal ah gabadha mar ay isku bedelaysay waxaan loo jeedin taasna nin kale ayay aad u qancinaysaa wuxuun dhaha yaa kaloo arka waxyaabahan si isugu jawaaba maya just me kusanoq Maari gabadheeda ayagoo gurigooda sii socday kama dambeyntiina soo gaareen hooyadan oo rabta gaariga inay ka tagtay gabadhan teedaan hurdaysay ka kiciso rag aan la aqoonin ayaaba aftuubanaya Maria suwi qoolidii ku soo kacdana iska dhigtay qof aanan loo jeedin kama dambeyntiina raggan burcada meesha way ka tagayaan inta kadibna gabadhan guriga intay soo gashay waa saabeeda una sheegtay awoodanteeda sidoo kalena hooyadeeda la aftuubtay balse Christopher u maleynay gabadhiisa inay iska kaftamaysa inta sheekadaas wadayna gabadhan albaabka guriga ku jirtay maqlaysay in la soo gargaraacayo hooyadeeda u maleysay kuwii tuugada hadana qaybta dambe ka soo orday waxayna imaanay iskuulka halkaasna kula kulantay Toby oo baaskiilkiisa isaga babaashaalaya waxayna weydiisanaysaa caawimaad isagana uu u soo waday gurigiisa inta ka bacdina waxay u sheegaysaa hooyadeeda in la aftuubtay tustana sidoo kale awoodan ay leedahay Toby inuu dhahay wax walba kugu dhaca diyaar ayaan ku haynaan ku caawiyo subaxdii xigtana ayaga wada socdo waxay imaanayaan habeenkii hore hooyad meesha lagu aftuubtay gaarigii hooyadna ay babaartaan ku sameynayaan kama dambeyntiina boorso labtoo ku dhex jira ayay ka heleen waqti dheer iyadoo ka soo wareegna gabadhan taleefankeeda la soo wacay qofna uu ku dhahay raggii tuugada ayaa ku raadinayo qofka ay rabana waa adiga waa inaa isqarisaa si aan loo qaban labadooda gaari gadaashiisa ayay ka gelayaan warkiina run ayuu noqday sagan kadib rag burcada ayaa yimid ayagoona isoo weydiinayay suwi xakeen ka heli karnaa intaa ka bacdina gaarigii ay saarnaayeen ayaaba rag soo wadanayaan waxayna keenayaan kambanigii ay u shaqo jirtay Maria markay yimaadeenna gaarigaas raggii way waaba la soo weeraraa mar dambe si shabta ama jawiga oo degay labadan gaari ka soo baxayaan meel hortoodana waxba ka soo muuqanaya Kaya waxa soo cadaanaysa labadan burcad Kaya inay la dagaashay waxayna soo sheegaysaa xalatooda hooyada ragga aftuubtay waxay wateen gaari isla gaarigaasna waxaa laga leeyahay shirkadda hooyada u shaqayso hooyadana xalay wixii ku dhacay oo dhan waa daawanayay arrinkan markay maqashan isugu dhayso hooyadii waxaa laga yaabaa dhismaan inay ku jirta haatan waa inaan gudaha u galaa balse Toby uu taas ka hor imaanayo dhahayna halisa geli kartaa joog si kastaba gabadhan ay ku madax adeegayso inay gudaha gasho qof aan loo jeedanay inay iska dhigtay sidoo kalena Toby ay taabatay labadoodana markay invisible noqdeena laabkii Maria ay raaditaan u galayaan wadadii inay isticmaalayaan si xumo laba saynisaan Toby uu ku kordhacay waana uu soo muuqana waxaan weydiinaan meeshan si ku soo gashay ayaa ku ogolaaday wuxuu ku jawaabay isagoo aqoon nasiibana kadana suwi ay u bedelayso qof aan loo jeedin kama dambeyntii waxay soo galeen qolkii Maria halkii intay joogeen suwi daal qabtay darteed ay soo xuday Toby uu weynaa wuxuu sameeyo wuxuu xaqaas ka helayaa dawo balas telefonkii Maria ay lahayd banaankiina Kaya oo aygan ka hageysay u sheegtay Dr. Drill iyo tiimkiisa inay gudaha soo galayaan sidoo dhaqsiyaha badana ka soo baxaan labadooda mar dambe suwi oo soo toostay iskuna bedeshay qof aan loo jeedin labadooda ka soo baxeen waan ku soo xaday baaskiil hasaate burcada aysan ka hareynin nasiib wanaagsan Kaya oo watay machine speed ku furayo baaskiilka isticmaalayaan waana ka soo fogaadeen kama dambeyntii laba
labadana ayay keenaysaaba gurigeeda suwi toobina markaa arkan gurigan soo uga yahay kay uu sheegayso eedadeeda ayaa iska leh intaa kabacdina ayaday weydiinaysaa labadan qof caawa guriga malala joogi karaan isla markiina ayadan ay ogolaatay waxayna aqoonsanaysaa sidoo kale suwi oo magaceeda ugu yeertay isla markiina gabadhan ay ku dhahaysaa xafiiskay ugu imaw suwina ay ugu timid waxaana weydiinaya magaciisa ku taqaana ayadaans ugu jawaabtay aniga iyo hooyada Maria hal bayaan iskala shaqeyn jirnay muddo aad u fara badan bas markii dambe waan kala tagnay maadaama hooyada talooyin aan u soo jiiday ii qaadan weysay waxaana ku dhahaysaa hooyada hadaad marka la aragto igu saalaan suwina ay dhahaysaa waayahay habaryahay markay ka soo tagtay qolkii labadii kale ugu timid saaxibadan ku weydiinayaan ayadan oo lowr lagu magacaabo maxay kuu soo sheegtay isoo ku dhays wax faa'iido lama bii sheegin ay daalinaysa leh intaa ka bacdina taleefankii Toby uu ku soo qaadayay laabka ay kala furayaan fiidiyoona ay ku arkayaan fiidiyoasna wuxuu u sheegay qofkii fiidiyoan arkow gabadheeda suwi iyo badbaadi taasna intay la yaabanayeen borsadii laptop ku jiray uu soo qeynlaya waana ay daarayaan kadibna cod robot ah ayaa ka soo dhaxbaxaya waana isbara caruurtan uuna sheegay Alfred ayaa la dhahaa isla markiina gabadhan oo xasuustay hooyadii Alfred ka sheekay jirtay weydiisay hooyada ma ogtaa meesha ay joogto wuxuu soo jawaabaa waqti xadirkan maya su'aal kale intii si weydiinsi kay hooyada ay caruurtan soo dhax galayso maadaama waqti cashada ay la joogo waana diminayaan cashadii markii la soo cunay kadib hadan qolkii soo galeen Alfred ma ay daarayaan su'aal kale ay si weydiiyeenba waxaana uu daara muuqaal Maria oo cilmi sameynaysa isla dawadii gabadhan teeda awood siisan ayay ku durisay iidan ay muuqaalkeeda u mirqo ama filaansi Maria sidii filaansi ka duwan ay dhacday oo invisible iskuma bedelin suuna taas aad u la yaabayso maadaama dawada iida kaliya jirkeeda uu ku shaqeeyo dadka la jirkiisa isticmaali karin Alfred gabadhan sheegay sababta hooyada loo aftuubto waadiga dartaada dad xun ayaa raba inay dhiigaad isticmaalaan kadibna isla dawadana marka la soo saaraan iyagoo duplicate gareynaya waxaaba soo dhan suweyn fahmayna habeenkaasna markay iska seexdaan raggii gabadhan raadinaya mid kamid gurigan uu yimid soo ku soo helay wuxuuna soo galaa qol Toby u jiifay isagoo u maleynaya inay suwi tahay markuu ogaado inuu wiilkan yahay kuna soo kacay daaqada ka baxaya oo ku ordaa guriga oo dhan subaxdii xigtana markii la gaaray suwi loo sheegay xaaladooda ninkii iidaan raadinayay waana sii welwelay oo dheesay maxaa laga rabaa aniga balse kaayaa dhahday caqli ayaan ku hayaa adigoo awooddantaada isticmaalaya hooyada waa inaan badbaadisaa waxayna u diyaarisaba suudkii ay xiro lahayd wejigeedana ku qari lahayd sidoo kale intaa ka bacdina igu wada quraacanayay geedhan taleefankii hooyada la soo wacay maariin ay tahay waxayna ku dhahay hadal badan ma ka gaaro meel hebel aan isugu imaano hal saaca kadib isla markiina suwi saaxibadeeda meeshaas yimaadeen xoogaha ay joogeenna Toby uu shakinayo wuxuun dhahaa ama siriq noola dhigooya oo qofkina soo camaari ahayn hasatay suwi dheesay waa hooyadeedii ay qiyaane si kastaba sakani kadib Dr. Drill iyo tiimkiisa oo gaari wata yimaadeen caruurtaana markay arkeen inay sheekada dhab tahay meel uga dhuumanayaan saas sakani badan ugu soo wareegeen haddana Maria oo wejigeeda qarsanaysa ay timid waxaana la hadlay Dr. Drill iidan uu weydiinay meesha maxaa ka soo toontay waxa sugu jawaabay suwi waa gabadheeda midaasna Dr. Drill ayay tacajab gelinaysaa oo wuxuu ku dhahaa maxamar hore uu sheegaysay haddii suwi gabadheeda tahay kusano caruurtii oo baalka qashin gadaashiisa ku dhuumanay Toby soo wacay gabadhii ay liinahayd waxaan xasuusinaa caawa habeenkii holiweynka inay tahay maadaama socodkiisa la maqli karo suwi ay soo qaabanaysa taleefankiisa waxaan uga tuuray meesha qashinka sina weydiinayaan sidee meeshan uga dhuuman karnaan si wanaagsan arkaya nin delivery cunto ku keenaya mootadiisana ayay go'aan ku gaarayaan inay xadaan si lamidna Alfred oo gabadhan siiyay hooyadeeda meeshii ugu dambeysay ay joogtay locationkiisana ay go'aan ku gaarayaan inay aadaan mootadiina ay soo xadeen mar dambe liinia ay iidan goobtan timid ninkii mooto laga xaday weydiinaysaa caruurtii xagee ka baxeen isaga soo yiri anaba yaaban mooto laga xaday maxaa ka dusa kusano caruurtii wadada isticmaalayeen ninkii Dr. Drill ah oo wadada balo gareenayo hasaate kayo isticmaalis mashiinkii xooga ku furayo lugta mootada ay mootadii dhan hawadaas gelinayso waana ka korboodayeenba Dr. Drill iyo tiimkiisa kama dambeeyna waxay soo gaarayaan Alfred locationkii uu ugu dambeysay lagu hayay ahayd meelahan ay ka raadinayaan waan ay weynayaan markale Toby uu ka walsanay in hadana sirq loo dhigoyo taasina doctor waxay ka xanaajinaysaa suwi oo waxay dheesay waan ku jiita waxa rabtaa in aad qoftaadii Aileen xafladeeda hadaad rabto waa bixi kartaa hadaba iska bax Tobina mootadooda ayuu soo qaadana waan uu ka soo ortaa second kadib gabadhan ayuu meesha jooga gaari madow oo dhinaca ku soo arkaya waan ka hortaan si wada dhuntaan halka Christopher Showgiis uu soo dhamaaday gurigan dib ugu soo noqday meel walba oo qolkoodii ah ay burbursan yihiin gabadhiisii balas xaaskiisina meel uu ku ogeynin la yaabsho wuxuu xaqaas ku arkaa ragii Dr. Drill u shaqeynay wuxuu weydiinaa meesha ma ka soo doortaan isaga laftigiisna waa ay afduubanayaan ku soo noqon labadii gabar si walba u rudayeen meel ka baxaan waayeen suuq go'aan ku gaarisa dawadii sunta dadka korida mirqda
daqiiqada isii jirtay inay isticmaasho balse Alfred uu ku dhahay dawadan waa halisa tuurin waase ku madaxdeegay Kayana ku dhahtay meeluuqa gal suntiina ay intii qabsatay raggan ku tuurtayba marka la tabar yari darteed gabadhan waaba ii soo xeesaa waxayna soo kacsaa guriga iyadoo joogta hooyada Maariyana ay ag fadhida haddana hooyadina weydiisay maama sidee meeshan ku imaaday waxaase looga jawaabay iskuulka adigu joogta ayaa suuxday aniguna waan ku soo wada halkaan ku keenay taasina gabadhan way fahmi weynaysaa oo dhayso hooy adigu lagu afduubtay Maariya ugu jawaabtay no si kastaba gabadhan dareemayso meesha wax badan inay ka qaldan yihiin qoftaan hooyada Maariya uma leysana si aan caadi ahayn u dhaqmooso inta ka bacdina waxaan arkaa Maariya oo ka soo baxdo guriga rageedan ilaaliyadan uu sheegaysay gabadhan guriga u ogolaanina inay ka soo baxdo inta kaliyamaan oo sidoo kale dhahday waa inaan Toby iyo Kaya meeshay joogaan gacanta ku soo dhiga kolkaas kadibna Maariya ay isku bedelayso qof kale waxaana soo baxday inay Lenia tahay caawiyihii Maariya haweeneydana ay isku durtay suwi dhiig laga qaaday kadibna ay iyadana invisible isku bedeshay ku soo noqo suwi oo rabtay inay qolkeeda ka baxdo ogaanaysa in hal galbaab lagu furaayo oo ka maqan yahay sidoo kale daaqadii markay fiirisay iidan iyo xiran tahay waxaana dareemay in la soo shirqoolay dhinaca kale Kaya oo saaxiibadeeda meel ay ku wada ballameen imaaday la yaabsa meeshaas Maariya ay imaanayso Kayana leesan adig ma balansanana gabadhaada balansanana meesha ku keenay si kastaba labadii soo raacayaan waxay imaanayaan haki lagu hayay suwi isla markiiba hooyadeeda aragtay saaxiibadeeda ku dheesay ka fogow tan hooyadeeda maaha balse Maariyadan ku celinaysa hooyada ayaa nahay taasina waxa uu xaqiijinayaba Alfred maadaama fingerprintigeeda uu ku furmi jiray markay taabatana Maariyada rasmigeed ay batahay inta ka bacdina Alfred muuqaal ayuu u daaraya kuwan wuxuuna tusaa waqtigii Lenia ay isku duraysay diiga suwi inayna weliga dooni jirtay inay superhero noqoto laakiinse markay isku durtay diigii gabadhan Lenia ay wajiif fara badan la soo bixi karto iyo inay isku ekaysi karto qof walba ay rabto inta ka bacdina Maariya weydiinayso Lenia hadda xagee joogtaa waxaysa suwin ugu jawaabtay waxaa laga yaabaa inay Toby raadinayso Tobina xafladii Halloween ayuu jiraa saddexdoodana go'aan ku gaarayaan inay haweeneydaas joojiyaan inta ay wajiga la soo bixin waxayna su'aadayaan xafladda meesha ka dhacaysay كارينا دي سو سارنايين سوي هودي دويدينيسو sidee ku aata meesha inaan joogo waxayse ku dhahe sagsaanta xiran tahay qalab ayaa ku jiro sidoo kale jaakada xataa qalab ayaa ku jiro oo meesha joogtayaan ku ogan karaa marka la isii weydiinayo hooy sidee ku soo baxsatay maadaama lagu afduubtay ugu jawaabaysa jaanis ayaan helay oon ku ordi karo waana soo orday baxsadkaana sidoo kale waxaa garabigiisii dhakhtar dariil siwina markay maqashay dhakhtar dariil una mili jirtay qof xun inuu yahay Maariya cadeynayso dhakhtar dariil inuusan qof xun ahayn una yahay booskeeda weliba aad daacad u ah Maariyana kama dambeynta gabadheed tusayso daawo ku soo celilahayd qofkeedii caadiga ahaan jirtay inay soo saartay balse suuqii diidayso waxaan dhahay awoodan invisible ayaanba ku heystaa dhinaca kale xafladii Toby iyo qoftii Alena isla joogaan sidoo kale xafladaas Lenia oo haatan Maariya ku soo keysay ayadana joogto kama dambeyntina sidoo kale suwi iyo saaxiibadeeda ay soo gaareen qorshahoodan u yahay inay dawadii gabadhan ku soo celid qofka caadiga ee hooyada soo saartay in Lenia ku duraan si uu raadinayna kama dambeyntii Toby Alena wada ciyaaraya arkeen taasna waxaaba ka masiiraya suwi maadaama yara jeclay wiilkan kaaysa dhahday waraa meeshan jecel looma joogay qorshe u imaanay qorsheena xooga saar raadin ay Lenia u galna kama dambeyntii ogaadeen inay Aileen ku bedeshay suwan isla markii taas waxay la socodsiinaysaa Kaya qaybta CCTV qaabilsanina arkaysa Lenia waardiyaasheedii oo ayna rabaan xafladda inay xog ku soo kalaan una sheegtay sidoo raqsiyaha badan inay mission ka fuliso qaacna ay xafladii ku sii dhaxdeynaysaa kadibna Toby gees ula soo baxay oo ina la socota Aileen waxaanu sheegaysaa qoftan Aileen uma leeso Aileen maaha waa Lenia balse Toby uu aaminsanaynin wilin uu xanaaqsan yahay hadda kahor markii ay kuli jirtay xafladda saaxiibada aad xoga cayn ugu sii dartay suwana ay raali gelisay wiilka hadalkaas intay wateen Lenia gadaal ugu imaaday wiilkan ay qoorta ka qabsanaysaa waxayna dhahay waa dila si kastaba nasibuna oo qof aan loo jeedin isku bedeshay Lenia ugu imaanaysa gadaal waxayna ku duraysaa daawadii labadoodna intay soo wada boodin isku soo dhaxdhacay meel barkada weliba ayagoo loo jeedin dadkii xafladda joogan ay daawanayeen una maleynayaan meesha inay wax ka qaldan yihiin balse Kaya microphone qabtay dadkii u sheegtay waxyaabay darkiiseen oo dhan waa barankii xafladda Halloween ay qayb ka yihiin oo loogu talagalay inta ka bacdina saaxiibadan oo banaanka u soo baxay la kulmayaan Kaya ayidid Laura waxaana Kaya ku dhaysay xafladan ka soo doonay maadaama hooyada ay taasi dhahday waqti hadarkaas Toby uu aqoonsanayo wiiljarka haweeneydan saaranta inuu yahay kii hadda kahor muuqaalka taleefka Maariya ay ka dhex heli jireen markii la afduubanayay saaxiibadiisna ayuu uga digaa inay Laura halis tahay halistaas way dhawoobaysa kadib waxaa xakaas imaanaya rag Maariya Christoph iyo dhakhtar Dariil uu afduuban yihiin waxaana socdaanaysa Laura inay tahay qoftii wax walba ka dambeeyay gabadhan afduubkeeda inay u shaqayso damceedu weyn uu yahay gabadhan dhiigeeda inay soo meerto kadibna dawa ka soo saarto dadkana ka sii iibiso meeshasna business ay ka samaysaba si kastaba si go'aan gaarayso dadkan ila raadinayo dhiigankeedan u baahan inaba sheekadana soo gabagabayso waxayna go'aan ku gaaraysaa inay isku darto dawadii loo soo saaray si qof caadi ugu soo noqoto waana isku duraysaa Laura oo taas aad uga xun gabadhan u soo dhawaatay waxa salaasana si banaag inay mashiinkii orodka inay wiiljarka lugtiisa ugu dhajiso haweeneydan intay soo oratay shilku galisay gaari meesha yaalay kama dambeynteena booliis oo halkan soo gaaray xirxirayaan dhammaan Laura iyo kuwan u shaqeynaya oo
oo dhan xurna laga dhigay. Maria iyo Christoph plus dhakhtar Drill dawadii isku durtana Sui oo jirkeeda ku saaqday isla markiiba suuxaysa. Mar dambana waxay ka soo gaasay iyadoo guriga joogto wilibna kii Kaya ahaa aabeen u ag fadhiyo. Meesha maxaa ka qabanayna markii uu loogu jawaabay halkan waa meesha ammaanka ku dareemi lahayd. Mariana gabadheeda u hadiyeynayso robotkii Alfred ahaa taasna aad ayay ugu farxaysaa. intaa ka bacdina gabadhan saaxiibadeedii Ruth ka dhisme meesha ku yaala kula kulmayso. waxay ka wada sheekaysanaa wax walba oo ku soo dhacay si lama filaanaysa Sui ee matag bilaabayso. waxaana qiyaasaan gabadhan dawadii ay isku durtay inayba jirkeeda saameyn ku yeelanin. intaasna Sui ku qosle saaxiibadeedna weydiisay gacmahayga qabta. markay qabteena ay isku bedeleen waxaan loo jeedin kuna qeylinayaan 3 fantastic ayaan nahay. wana dhamaadkii kuma isni daawashadaada like subscribe ay laawin.